كانوا أنت نبغى ما تنادى نجيب هذا النقيا ما دام هي تهاي بشي امتحانات كشهر جاها نرستم وصلنا لك الدونا امتحان كي من ترانكو أدي أدي ما سنتين وحن عمرنا يا برنامج كنا نسوي بذكرنا ونحاول سكور فدينا إسلام كان ما دام أي وقت أدي عديد النبي هاي وحن علينا برنامج كنا نسوي بذكرنا إسلام كان يصير عالي إنه أنقب العظمة آياتها القرآن الكريم كا وإنه آخر يدونه ولكن عبد الله علي أحمد يتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين وجعلنا آية النهار فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وصدق رسول الله الكريم. ولكن الله ميزانك حسناتك وقدر إننا نكوي حقوقاتي لا ينقيله. أنت بعد واحد شغالها إن كلمة سيو قدوميها قررك نادية أردية الصومالية ذلك مصر قدومية أبي بكر آدم شيخ إسلام كان سيو كلمة دي هاي والكومنتا المسؤولينتا يتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay caawa inuu nala joogo caalimkeeni aabaheeni ummadda Soomaaliyeed. waxaan u malaynayaa qofkii aan aragna magaciisa in badan buu maqlay. marka anagu hadaynu nahay ardayda Masar inuu caalimkeeni nala joogo sharaf bay noo tahay. dhammaanteena caawa waxaan soo dhaweynaynaa sheekheeni Sheekh Abdullaahi Sheekh Ali Jawhar. runtii aad baan ugu faraxsanahay. idinkana aad baan idinkugu mahadcelinaynaa imaashihii ay imaateen. waxaan dareensanahay imaashaha markii la imaanaya naadiga aad bay u dhib badan tahay. maantana khamiis bay ahayd
maalinta khamiistana maalmaha kale way ka badan tahay yani way ka zaxmo badan tahay sidaa daraaddeed aad baa u mahadsantihiin imaashaha ay imaateen si gooni ah waxaan ugu mahadcelinayaa gabdhaha walaalahayga ah oo naadiga saa u qurxiyey naadiga caawa waxaad moodaaba annaga imaan jirnay dee madarkiisa waxaan malaynayaa aad buu bilicsan yahay waxaan leeyahay yani waajibkiina gudateen laakiin annaga sharaf baad noo yeesheen ilaahay idin sharfo gabdhahayna aad bay u mahadsan yihiin runtii aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa waayo haddii aan iyaga ahaan lahayn naadiga waxaan u malaynayaa naadiga waa meel taariikhi ah waa meel soomaalida dhan u dhexayso oo la wada jecel yahay laakiin waa uu daqoobay marka daqonimadana lama jahel marka sidaa daraaddeed waxaan u malaynayaa hadalka annaga aan caaw sugayno waa caalimkeeni akhyaar kalena way joogtaa oo aan u mahadcelinayo oo walaalkayga cabdullaahi oo aad garanaysaan ama cabdullaahi dahabshiir oo aad garanaysaan odayaasha magaalada ka mid ah oo dhinacayga midigta fadhiyo waxaa kaloo fadhiyo walaalkay cabdinaasir oo runtii ah qof zaciim weyn ah laakiin dadka garanayo yaryihiin baa u malaynaya cabdinaasir mardhow buu qurbaha ka yimid laakiin wuxuu soo wada ka daran waxaa badan buu soo wada cabdinaasir bal haddaba cabdinaasirna wuu joogaa idinkana waan idin soo dhaweynaya mar labaad mar saddexaad idinku dheereen waayo akhyaarta iyo idinka bal haddaba si aan u dhegaysano ayaga iyo sheekhaba ayagaan ugu baxaya aad baa u mahadsantihiin asalaamu calaykum gudoomiyaheenu sida wanaagsan ee xilkaasnimada leh oo nagu soo koobay kelmadii soo dhaweyn tahay aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa iminkana waxaan jecelahay inaan ku soo dhaweeyo aqoon-yahanadeenna aqoon-yahan ka mid ah isla markaana dalkan masar aad iyo aad caan uga ah ummadduna aad ay u taqaanto tixgelin weyn iyo qiimo weynna ummadda ku dhexle dhinaca miisaanka haddii noqoto iyo haddii noqoto aqoonta iyo haddii noqoto odaynimoba isla markaana ah haddaan nahay reer qaahira dadka ugu waaweyn ee ugu tuka waaweyn mid ka mid ah isla markaana aan ka dhigano markaste gaashaan kaasi talo waayo waxa weeji cabdillaahi nuur xasan oo ku magac dheer cabdillaahi daabshiir isla markaana aan ku soo dhaweyno si uu ugu soo dhaweeyo sheekhulbeledkeena sheekh cabdillaahi sheekh cali jawhar صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم marka hore dhammaantiin waa salaamantihiin waxaan runtii aada ugu mahadnaqayaa naadiga gudoomiyaha ardayda soomaaliyeed iyo naadiga kulankan ay noo soo qabanqaabiyeen munaasabadan qaaliga ah runtii waxa weeyaan fursad bay noo tahay haddaan nahay reer qaahira jaaliyada iyo ardayba in uu caawa inala joogo sheekh cabdillaahi sheekh cali jawhar oo ka mid ah culimada waaweyn ee geeska africa isaga iyo aabihiiba waxay tilmaamaysaa markaa runtii inay fursadii noo ahayd anigu runtii waa markii ugu horeysay aragga laakiin magaciisa muddo dheer ayaan maxay ahatay maqlay taariikhda reer cali jawharna runtii gobli haddaad geliso sheekh gobli haddaad weydiiso wax badan baa ka ogaanaysaa marka halkaa laga maxay aad looga bogto laakiin caawa runtii waxay noo dayf qaaliya ayaa inoo martiya inoo ah sidii horeba dad badan oo qaaliya halkan inoogu yimaadeen waxa weeyaan sheekh cabdillaahi sheekh cali jawhar oo mar sheekha marna oday maxay ahatay guurtiya ah marna siyaasi ah intaasba taariikhdiisa markaynu eegno waynu ka helanaa sheekh cabdillaahi sheekh cali jawhar waxaynu ognahay inuu imika yahay imaamka iyo khadiibka jaamica maxay ahatay boorama casharo badanna maxay ahatay halkaa uu ka dhigo taariikhdiisa runtii waxaa laga yaabaa sheekhu inuu ahaa maayarkii boorama 1987 ilaa 85 muddadaas boorama maayar buu ka ahaa duqii maxay ahatay booram uu ahaa halkan aynu joogno sheekhu waa uu inagu soo mar hore soo booqday inagoo inteennana aanu maxay ahatay aanaynu joogin ayuu halkan intuu azar yimi 86 ayuu maxay ahatay dowro culimada loo qabtay oo maxay ahatay ayuu ka qayb galay naadiga laftiisana runtii wuu soo booqday waxa uu sheekhu ka qayb qaatay isagoo
waqtigii dowladnimadii maxay ahayd horana ka ku jiray markii dambana nabadayntii maxay Somaliland xoog uga qayb qaatay laga soo bilaabo 93kii ilaa 2005tii wuxuu ka mid ahaa golaha guurtida ee Somaliland ka mid ahaa markii dambana isaga si iskiya isaga maxay ahayd golaha mas'uuliyadda isaga dhiibay oo golaha maxay ahayd ka tanaasulay waana naadir way yar tahay nimanka qolada guurtida joogta oo laga kicin jiray bal la ka sii dhaxlaaba marka taasuna waxay ku tusinaysaa waqaarnimada iyo sheekhnimada iyo inuu mar walba isagu aanu masab raadinayne dadkan bal inuu nabadgelyadooda iyo horumarkooda uu raadinayay ilaa imikana waa ka cilmigiisii dadku ay wada shaqeeyaan kolkaa kulli taariikhda waan ka wada bogan doonaa oo hala wada maxay tahay isagaaba caaway noo jooga marka wax badan ku sii dheeraan maayo laakiin waxaan leeyahay sheekh waxay qaahira oo beledul cilmiya oo beledul maxay tahay azara oo waxaan ardayda iyo qaar ka sii horeeyay ay ka baxeen bad caawa joogta ardaydaadii iyo maxay tahay muriidiintaadii iyo waxaad hor joogtaa dad kale oo jaaliyadii Soomaaliyeed ka mid ah oo ku soo dhaweynaya kuna jecel in dhagahoodana ay u maxay tahay heelayihiin ciwaanka maxay tahay muhaadarada aad soo jeedinayso ee ah walaaltinimada iyo maxay tahay muwaadinimada labadaas isbarkana ayaan insha Allah caawa ka rajaynaynaa intaas aan ku soo gabagabeynay waxaan leeyahay welcome sheekh soo dhawow gacmo furan iyo qalbi furan iyo dhago ku diyaaraan kula diyaarnahay wassalaamu calaykum warahmatullaahi wabarakaatuh الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وحنرتكم كهورا لهي اللهم اجعلني خيرا مما يحسبون واغفر لي ولهم ما لا يعلمون دي أمان لقول سو جيديو وحلولين جري سيدة أحاديث أكون تمدين نقفكو أو كيف كفر الله يستوى أمانتها أو إلى ضدك وحين أولين إله ويقداف لما أنت يلا نوجد مدافع مغفرنا وكوي ديسينا وتأولا أدبان ذي سلامية وضك اللمانتي والسلامية سيجار وحن سلامية مديرك النادية الصومالية ضعاء وهلك مرتي أن أوهي يسجيو جميع سبا أدبان سلامية صلاة الإسلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سيجار وحن تحجرين إياه وممكن إياه قاهرة ومقالة وين أو بلارن أو ضدك قاركين مالها قاد كود 6 ساعات 4 ساعات لصوك لصعون هايو ضدك تحكي لي قيمي باقة أنا وان مضمين ضد انت هاللاقين يسوك يمادان لكن أقول شرفين هذه الصوماليات أقول شرفين أدبنوا مهد علمية هدي أنا ضافه موضوع عيقا أن أضافه انت أنا نرتب موضوع الجنين ومركي لبعضين قاهرة إماده سداو شاقي عبد الله تابشيل لحي سديتنكي إيان محايري هلكن يمدي دولدي علماء اللباطن علماء نوعين وهيئة الوعد والإرشاد لو نجري وزارة عدالة دروس المجلس السعودي وقبل والبا قف كيمدي سنن أو كلا با ليسي يعني شيخ الأزهر الشيخ علي جاد الحق بالجوجة كلها خطاب كي الدولة qofkii Soomaalida laga siiyay ibaanka kamidaha aan jeediyay khudbadii Carabi aan ku jeediyay waliba shicir aan ka tiriyay ay kamid ahayd حفظت لدين الله أزل جامعا شتات علوم من تراث المعالي ويسعدني بدء النشاط لدورة تنير دعاة الناس كل مجال شيخ الأزهر وإنتي هو مودي سوداني مودي كان لكن إليه وهل نبأ فيما يعانيه شعبنا على وضعة الأحباش في غرب الصومال بيد الشيوعي الماركسي حيل مريم وتخديد حزب الروس داعي الضلال فقد هدمت فينا مساجد شيدة هل كان مريو يشاهو مدح ومركي دمنا وحي يقول كنت أحسب أنك صومالي كنت أحسب أنك سوداني لكن عرفت فيما بعد أنك من الصوماليين يلي وحشيخو يلي waxaan jeclahay guuri inaad wixii aad kordhisanayso hadii aad u baahan tahay aad kordhisato oo joogto waan jeclahay baan
laakiin duruufo badan baa igu xidho oo ani saamixi karin runtii waxa xadiis baa wuxuu ahaa kuntum sigaara qowmin wasatacuuduuna kibaara qowmin aakhariin intii maalintii 86 aan ku nimidnay inaan unbaa iga yaraa boosaaso ka yimid cabdirasaaq qaluni unbaa iga yaraa inta kale waa ka wada yaraa maantana waa ka ana idinku weynay meesha joogay aabbo iyo adeer iyo wadahayo carruurteeda kuwa qaarkood baa kuwa ugu yaryar ay gaadhsiisan yihiin alxamdulilah rabbil caalamiin mawduucan waxaan u qaatay horta waxaan aad u jeclaystay oon ku farxay dhalinyarta qaahiro warbixinteeda iga siiyey sida ay u midaysan yihiin magac kasta soomaalidu ha kala sheegato ama qaar somalilan ha sheegtaan ka yimaadaan qaar puntland ha ka yimaadaan qaar federaalka etoobiya ha ka yimaadaan qaar muqdisho ha ka yimaadaan sida naadiga aad ugu midaysan tihiin aad baan ugu farxay markaa shawq baa i galay jacayl baa i galay safiirka oon booqdayna isaga naftiisa runtii waa nin qaali ah waa ragaalkan azarka ka baxay oo nin aqoon dheeraada aan isku leenahay hawlo badan baan leeyahay buu leeyahay laakiin muxaadarada inaan ka maqnaado ma ahayn buu leeyahay laakiin hawlo badan baa yeesho ka cudur daartay isaga runtii ammaan badan baan u hayaa dadka Soomaalidu siday yani uga mahad sheeganayaan sidoo hawlaha ugu fudaydiyo ee ugu dhaweeyay isagoo u kala eegin meelaha ka yimaadeen midna aan eegin awalan saxaabadu kolkay isku yimaadaan iyo kolkay kala tegayaan caadi lahaayeen waxay caado u lahaayeen halka badiyaa inta badan kolka la yimaado faatixada inoo mariya la yiraahdo suuratu wal casr a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim bismillaahir rahmaanir rahiim wal casr innal insaana lafii khusr illa alladhiina aamanuu wa 'amilus saalihaati wa tawaasaw bil haqq wa tawaasaw bis sabr wa ayadaha suuradaha quraanka ugu gaaban uguna ballaaran baa la yiraahdaa maxaa yeelay acmaasha afarta ay suuradu sheegayso al iimaan wal 'amalu saalih وتواصي بالحق وتواصي بالصبر وواحد وين أو قيمة له ضد أو مؤمنين أو ضد مؤمنين أعمال صالحان اللي يبدأوا استقامة الدين كودا كتوصل يقول دادي يقول يعادلود أي تهي التواصي بالحق وحي حق ثابت إجرا باطل كهور جيرا إن يسوع شيئا والصبر وبالتواصي بالصبر أتكيس شغل أتكيستنا إن إسفران ama ha ahaato macaasida ha laga adkaysto daacadka oo dhibaatooyin badan ha loo adkaysto dhibaatooyinka iyo masaa'ibka ha lagu sabro aqsaamta sabirku u leeyahay waa suurad weyn oo jaliila waa taafitahan oo baan ka dhigtay mawduucan idin hadlayaa waa mawduuca cinwaankiisa aan idin soo sheegay ee ahaa walaalnimada iyo wadaninimadu waxa ay tahay wadaninimada rufaysiinaya horta wadanka ilaahay subxaanahu wa ta'aala kitaabkiisa quraanka wuxuu ku yiri يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم ضلوا عصر التنزيل وقت الإلهي ذلك أوصدا أوليه سابق ضوءها إنك سلكين قرآن كان لنقصه جالسي مركا إلهي لك وحكو شيء آدم أبو ردي آدم وأبو ريبا كوكو أبو ريبا حكمة أوغو تلقى لي إن أحيد إن إلهي أبوري وحن إن أبورني ده شعوب لب يدك بان ذيك أبورني لب يدك عن ذيك أبورني وحن ذيك يالني شعوب يقبائل بان ذيك يالني شعب يالك آسيا كل لول إيشيا كل لول كو أمريكا كل لول كو أفريقيا كل لول شعوب سواوين وقبائل قبائل قونية اللي تعارفوا سعد سجرتان بل حكمة الميشا كنت جرتين ximada ilaahay u dhagay halka sharqiga u shisheeyay hadaa tagto dadku si gaar ah iskugu eegeeyay ee shida soo hadaad aragto si gooni isugu eegeeyay yaman kolka soo gaadhiyo halka maanta aan joognay Masar kolka joogto labada qof kolkay ka soo horbaxaan baad kala garanaysaa kaasina waa Yamani kaasina waa Masar sida qaalibka ah shaamiyiinta waad garanaysaa kolka ka soo horbaxaan ay reer shaamiyiin qolada Afrikaanka kolka aad aragto halka gobolka aan ka imid awdal kolka ka bilowdo ee sida u waday inta Soomaalidu waa shucuubtaas ay la mid tahay laakiin kolkaad Soomaalida ka baxday Afrikada kala gasho kolkaad waad garanaysaa dadka inaad ka baxdo waad garanaysaa haddana Afrika kala ku wareeg waa xigmad Ilaahay subxaanahu wa ta'aala oo yeelay oo ku fadhiisiyay carrada iyo abuurka dadka iyo mawqica juqraafiga ee meesha uu ka dhigay in ay kala ahaadaan shucuubna ay kala ahaadaan qabaa'ilna ay ahaadaan waayo xayawaanku haddii laga soo qaado ari uun la yaraa waxba wax macno ay sameynaysaa ma jirto inuu farqi kala yeesho ari waa ari uun sidaan isaguna isma eegayo waxba ka dambeeyo male
ودنافku hadduu isgaranayo waxbaba ma cunayna wuu isweydayn lahaa si aan looba qalaninbaba laakiin bini aadmiga xigmad baa ka dambaysa oo ilaahay ugu talagalay inay kala duduwanaadaan horta midabkooduna kala duduwanaado mawqica juqraafiga ay joogaan goobo gaar oo kala noqdo iyadoo haddaan la manciyaynin la sheegaynin isdhexgalka aan la sheegaynin laakiin xigmad weyn baa meesha maxay ku taala sida iyadoon yeelay waxaan u yeelay si aad isku ogaataan oo xiriirkiinu oo u socdo isku ogaataan afgaar la wuu yeelay qoladaan afgaar u yeelay kan afgaar u yeelay waa luqadkii waxa la baray nabi ilaahi tacaala aadam wacallama aadam asmaa kullaha ayuu baray mufradaadkeedii loo horeysiiyey kan waxaasaa leelaa kan waxaasaa leelaa kan waxaasaa leelaa kan waxaasaa leelaa habka hooyadu sida ilmaha yar ay wax ugu sheegto ma tiraahdo hooyadu hooyo dabkaa waad ku guban doontaa ma tiraahdo waa ilmu intaa ma keeni karayo ma qaban karayo unbay odhanoo unbay qabadsiin waxaasi waa waraabo oo wuu ku cuni ma qaban kara ilmi yaraa kama dhegeysan kara hooyada laakiin khoof unbay odhanoo khoofdaa unbuu waxalba unba ku garan mufradaadkaas sidaa u horeeya xigmadda ilaahay aadam ugu horreysiiyey waa sida dadku uu qaadanayo talaqiga u qaadanayo waxaa loogu talagalay inaad isgarataan oo macrifo in akramakum cindallaahi atqaakum ilaahay agtiisa ka idinku maamuus lihi halkuu doonaba ha ku noolaade waxa weeyaan ka idinku wanaagsan taqwada ilaahay ku sifooba ee taqwo leh suuraddii aan ku bilownay ee suuratul casr ahayd afartaa dabaqa aliimaan والعمل الصالح وتواصي بالحق مجتمع الحديثة وتواصي بالصبر أتكيسها كعين كاسة إلى أكتيس أبو ماموس وين وحين أوضان تاسو لهي بيجي دا ولجاي هذانا وحكود بيعي عدو والبدل كذا أي كل نوع صحيح محبة جارعين أو هاي صوت عيل جارعين أو هاي نبي الله تعالى محمد صلى الله عليه وسلم عليه تاريخ الواضح صار غير مكان دباتين وجيستين يصير كيالان أضل الله وقبا بعد كده قاعد إنه كبحه أو جد يسوي صاحبك أبو بكر جد أي جلال جد كي مركي أي كبحين سنا أي وصل الموضوع وصل جلاعي مكة والله يقولي إنك لا أحب بلاد الله إلي وما يشاء لكان وجعلاوي حضانوا قوم كانوا يجبحينا كام أم بحينا لكن ولا يقول اللي فيه بحيد عم بحي إن الذي فرض عليك القرآن نزل عليك القرآن لرادك إلى معاد إلهي كسود جي وهكذا كسود التالي إلهي وكي أوضي إنه كسود عليه ما يشاء الجعراتي قلبك الصدى أضوه هيصو مدينة كلكم سوق لي وحيري اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا لمكة وأشد إلهي نجعل يسيبوا لي وضع كان الدقنين اللي بدني سريعا مكة وجعلين يسكسي على نجعل يسيبوا بلال وصحابي اللي بعثنا السوق قاعدي مكان لأوجا وحي كسر قاعدي لأوجا حمد كل خي قبضوا يقلدوا حنون صدق شوق يجعل بقى قبنا أي مكان قبنا هذا هو ماشي وحي اللي هو جيسين لأوجا لا الحين طال على صار حر رمضاء وقت الصيف كان شديد كا أحد كل لا كان نقول هنا أحد أي هذا أو كل قبي يوم رجلي ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بوادي وحولي إذخر وجليل وهل أردا يوما مياه بجنة وهل يبدو لي شامة وضفير الله ما نقاد أبوك يا ميان بري أبوري بوره مكابه بري ضفيليو ضفيليو جليل ميان بري آيو أنكون أبيض بورها قاركودنا ميان مقضانا وماشي لباتني كسو قاعدي لوغا وجعل كوضنك وين سومالنا waa tirada shimir baa laga soo qaaday baa la yimeel cidla oo abaar ah oo geedii galoolka iyo waxa soo jiraan markaas uu soo qabsado beer iyo keenay meel bustaana oo biyihii iyo wax mas'uul ma keenay markaas ay tirada ahya wadankayga ay bay tiraalay shimbirtii halkii ay baratay oo ka soo qaaday wax maalmaha kamid ah nabiga u yimiday nin ayaa u yimiday nabiga sallallahu alayhi wa sallam asiil magaciisa la yiraahdo markaasuu ninkii ayaa sidii u hadlay bilaal oo kale ayuu u hadlay oo leeyahay ala layta shicri hal abitana laylatan biwadi الخزامة حيث ربتني أهلي بلاد بها نيضت علي تمائمي وقضعنا عني حين أدركت معقلي وكان يليه ميان وقاد بلاد كي عين كاسي جيدا عين كاسي كبحيين صدعها وعروتك وحلو حلي جري وحيابا قرناصا وحلو حلي جري
xildiid iyo waxyaabo caynkaasoo dumarkeennu ay lahaayeen oo kolkii dambe la fahmay oo waa waxyaabaha xasharaadka ka ilaaliya dadku wuxuu moodi jiray in qardaaso loo xidhayo ay tahay baa la moodi jiray laakiin kolka carruurta halkaa loogu xidho kuma fadhiisan jirin duqsigu kuma fadhiisan jirin sidaa kolkuu ilaa kolkaaba duqsigu uu ka boodi jiray kolkaasaa la odhan jiray ilmuhu kolkuu isagu garaadaysa isagaa iska tuuri doono la odhan jiray bilaadkii aan ku barbaaray ee makaraanada la iigu xidhay ee hooyaday iigu xidhay waxyaabaha xasharaadka iga celiya ee aan kolkaan garaadaystay aan iska tuuray alla maanta maa dhex jooga ah markaasuu yidhi yaa asiil kayfa taragta maka bal iiga warran buuri sidaad kaga timiday markaasuu wuxuu yidhi waxaan kaga imiday buu yidhi iyada oo tacujub widyaanuha ay butaacayaan togogeedii waqti barwaaqaabe togogeedii ay butaacayaan geedihiina ay wada ubaxeeyeen hadhkiina uu soo wada rogmaday ayaan ka imid buuri xasbuka buuri laqad shawaqtanaa yaa asiil caaisha waan daymooday bay tiro faidan cayna nabiyi sala allahu calayhi wasalam tahrac waaba labadiisi tadrif wa tahrac waaba labadii indhoodoo lilmo ay nebiga ka daadanaysa salawaatu ullahi wasalaamu calayh horta waddanku waxa weeye qiimihiisu waa kaa weeyo qiimaha caynkaasi ayuu waddanku aw leeyahay innagu haddaan ummad soomaaliyeed nahayna dee waddan baa innagana ilaahay na dhigay kaa inaan maxabadiisa horta hayno aan qalbiga ku hayno weeyi waxaa jirtaa in waddaniyaddu marka qaarkood nooc casabiyay noqotaa ama qowmiya ayay noqotaa oo qiimo ma yeelato xagga islaamka dhexdiisa qiimo ma yeelato marna way toosan tahay way hagaagsan tahay marka fii idaari diin ay tahay ee qofku muslim uu yahay uu diintiisa dhowranayo ee uu toosan yahay waddaniyadu kolkaa qiimo ay leedahay lamana odhan karo kolkaa waa casabiyad baa lagu sheeganayaa lama odhan karo waa qowmiyadu lama odhan karo laakiin markay noqoto waddaniya baxta ama qowmiya baxta sidii duwal alcarabiya mararka baryaha qaarkood oo dhex hore inna ay ku dhawaaqi jirto qowmiya alcarabiya una ay odhan jirtay inna ay odhan jirtay un maxay hayday waddaniya alcarabiya un la odhan jiray waa tii faashil bay noqotay marka tacaynkaasi waxay noqotaa faashil bay noqotaa innaga nafteedu way nagu dhacday haddii heesa la heesaya ay tahay haddii gabaya la gabaya hadday waddankoo lagu heesayuno waddankaygo maxaygaygo waddankaygo kaa uun la leeyahay laakiin aan ku dabaqanayn fii idaari diin war dad islaam aynu nahay dad muslimiin diin baa laynoo soo diray diinkii ugu qiimo badnaa baa laynoo soo diray war waddankeenna inagoo ilaalinayno oo waddankeenna jecel war diinteenna aan toosino war diinteenna aan hagaajino lagama fikirayn xaggaasaa loo kaco markii ugu horreysay waxaa la qaatay nidaam ra'samaaliya ayaa la qaatay walow dowladdaasi la yidhaahdo wakhtigaa hore waa tii ugu toosnayd ee la yidhaahdo waa lagu fashilmay markii dambe haddana bari baa loo jeesto barina aan u jeesanaliyo qofna kolkay dhibaato ku dhacdo de kolbadhan buu u cararaa kolbadhan yuu u boodaa kol galbeed baa loo booday kolle waxaa loo booday bari baa loo boodo naartii shuuciyaddii baa lasoo qaatay tafriiqa iyo kala kaxaynta iyo dhibaatada iyo waxay keentay la ogaa aasartay ka tagtayna la ogaa raadkay soo martayna la ogaa waxaasoo dhan maxay ahayd waddaniyadaha wakhtigaa jiray waxay ka madhnaayeen xagga diinta ayay ka madhnaayeen oy salbi ka ahayn sidaa darteed ayaan waddankii aanu ilaashanin mana ilaashanin oo ma dhowrmin dadkiisiina dhibaatada ku dhacday iyo waxyaabaha ku dhacay haddii ay toosan yihiin oo xagga diinta ay dadku ku toosan yahay waaga oo nidaam islaami oo toosan la qaadan lahaa dhibaatadaasi ma ay dhacday ma aha wax khayaala waa wax xaqaa'iqa oo dhab ah casrigii kolkaa ka warran islaamka uu soo maray ilaahay wuxuu u ballan qaaday dadka mu'miniintu haddii ay toosan yihiin oo ay hagaagsan yihiin oo ay la yimaadaan aliimaan walcamal saalix saddex shay buu ilaahay ballan qaaday وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا صدح هذا الشيء بأنه بلن قادم إن يجوا يسوط ليانو أرلضا عن دقي يكونون فيما بينهم خلفاء النبي إبراهيم النبي الله تعالى آدم حين يوصل دقي نوعي خليفة إنه قضوا إلى أحكامتي سأرلضا كفليو إننا وحن إذا كان الله إذا كان دقي خلائف كو أرلضا دحي أحكامتي إلهي كفليو أو كلا هذا إنه هرتا نقضان كو خلفاء فيما بينهم أو يجوا يسكوا حكومة دولك إنه الدين كوضا مكانيو إنه كو بدلوا عبسيدو ذاك بعد أمن أو كو بدلوا أنت بوي دعدي عصري النبي قد حدي سيد دعدي أواخر تيزي طنبه عصري أبو بكر عمر بي دعدي عصري علي بن أبي طالب بي دعدي عثمان بي دعدي
يعني مدمن هاي ما ده أمراضي كذا بيصير نفسه لو اختيار واحد جبتي إسلام الزاهر وهاي إلى مشارق الأرض ومغاربها دون والبا وضع كريستيان حدودها وضع إنسان لكم محي إليه وقاري مركز شيء خيال ما هي نوع إسلام حقيقي يا هي وحكي من جري مالك وكي من جري دون والبا وكي من جري أساس وشو بيجري وباهي ولا باهي باهي وحيل بعطاها يوحيل صمر ولا باهي به مال ما كمل يا سيدنا عمر بن الخطاب ayaa waxa uu yimiday yaani waxyaabo waaweyn ba Faris ka yimid oo qanaa'im waaweyn oo islaamkii wada gaaray Madiina joogay oo dhan qof u wada gaaray oo waakii qisadiisa kamid ahayd haweenkii ku xataa markii quruxda sanaa u qaybiyay ayaa mid baa soo hadho markaas Said Ali baa sodog oo ahaa Said Ali buu guursaday kolkii dambe oo nabiga ay dhashay Faaduma Rasuul ay dhashay iyo guursaday Umar bin Khattab gabadha Faadma rasuulinteedii ku xusuusan inuu tan gooniyada dheeraad ugu darbaalayay la abu islaam muhaajirada ahayd baa uga xaqlay buu taasaan yaan ugu darayaa buu islaam muhaajirada waa qanaa'imka caynka ahaa ayaa halka la soo buuxiyay nin saxaabada kamid ah baa yiri hada min fadlillah wa fadliga ilaahi rasuulullah intuu Umar u eegay ayaa wuxuu yiri يا أيها الناس قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون هذا فضل الله منك يوحو أركي مع الكريم ويقول فضل إلهي إنه كان الإسلام كأوكياني عمر ما أولاني فضل إلهي ما أولاني لكن وحو تصي فضل حقيقة وحائه وقرآنك إذنك شفاها يعني إذن رحمة إلين هداية إلين كاكو فرحة من فضل إلهي كاسة هذا النبي الله تعالى سليمان أمك يسير البلاري وكيل هذا من فضل ربي ليبلغني أشكر أم أكفر وكيلها وحال إيسا خيري وح إلهي نعمد إيسا لكن حقاري عمر بن الخطاب مدرسة النبي الله تعالى محمد بن كصوب صلوات الله وسلام عليه أو رات كيسي أن هيا نبي الله تعالى محمد بن سليمان وككامل سيئه نبي سليمان وككامل سيئه أفضل خلق الله وي كوكاسو أركي عمر فضل الله هل كي سليمان مالكي يملكي جلسي ومن فضل الله هو أركي فضل الله وحا أبوري كتابك القرآن كأه يا إلهي صدر النبي الله تعالى محمد بن صدر واحد جثم ما كمل أبا هريرة المدينة يسوي تشوبا يا أمة محمد أنتم ها هنا وميراث محمد صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد إذا لما يسنا فردان وتقامئية بلا عادي وحدان بود لحالك النبي كان صوت لو قيبن يبو مساجد لو قيبن والله صويا جبل سوري وقف صلاه كنيه وقف حقرسنيا وكل اعتكافيا وكل ما انتو انتو سو جيدي اسكي عباديسنيا ير جيفا markaas وهل ترك محمد صلى الله عليه وسلم لنا غير هذا ما دحلبي نوغا تيغي روحي نوغا تيغيسو انت ما وحي نوغا تيغي marka eeg saxaabadu sida u arkayeen eeg waxa qanaa'imka waxaas ma ay tuulanayeen halkan ma ay gashaan sida adduunka laga dhigay ee waliba wadanka aan ka nimid Soomaaliya ama koonfur ahaado ama Puntland ahaado ama Soomaaliya ahaado qofka ku wasiir noqda lagu tahniyeeyay ma sha Allah wax jaga amal hayd war qabsan jaga dhisatay كل كابو بلابيا سوق جاو قبس لاب بلابيا دار وين بكل كابا بلابيا قاركودنا بانا كابا كشبتان عشان كل كابو بلابيا بان إنه كشبته يو قاركودنا وبلابيا نوع ما يناهي صحابة ما يناهي وحي هالكاسة ومد المال كذا هالكام بالسود جيو سلام بمد اللون جلو باي بكل كاب ما يجري راليك هذا قضياش هو يسكت شيء كبرين كلية سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي الله تعالى عنه أيون نين بالديرة يوحنا وجهه سيد أين الدنيا وسامين نبا إنه وحويدي صدقني سيد وحسن وباهنا هاي موعلا انتو قاتي يو هلكا كقري ووليه هاي لم يبقى عندي ما يباع بدرهم تنبيك حالة من ضيع عن مخبري إلا بقايا ماء وجه سنته عن أن يباع وقد أبحتك فاشتري وحولي wax agtayda yaalaay ma jiro buu wax dirham la siistaa on haystay ma jiro war aan ku warramo waxa kaaga filan buu aragayga sidaan oo kayba kaaga filan buu ilaa wajiga waxooga yar eegu hareeno inta wajiga iibsanin iyaan isleeyahay intii wajigii yaraay ee haray Said Ali iga iibsay buu
sayidku sidaa warqadda qori dhulka xariiqaya dhulka uu xariiqayay ayuu arkay wixii uu yiri halka ka arkay isagoo la dul tagin buu halka ka arkay ishaaradii buu la socday qofku hadduu aad wax shayga u yaqaano oo halkaas sawirada sidaa yiraahdo dee macallinku wuu garan karaa sidaa kolkuu yidhaa hal inuu yidhi qultu inuu yidhi macallinka xaribkii u garan karaa iyo kolkiiba isha ku dhuftay wuxuu waafaytanaa faataaka caajilu birina hada walow amhaltanaa lam naqtari fakhud alqaliila wakun kaannaka lam tabic ma alxaya wakaannana lam najtari waxaa dul jooga kolkaas sayidka u timiday ximaalatu 5 jinaal 5 awr maal ay sideen ayaa u yimiday wuxuu waad noo timid buu wanaag wixii birri aan ku taraynaa kaama baraagine uu yimiday buu intanba wada qaaday buu dhamaanteed ba wada qaaday buu waxa yadada dad adduunyada aan qiimo la ahayn ay ahaayeen sidaas xaalkoodu aw aha waxaan soo noqonayaa waxa kor waayeen waa wada indhaa leeyahay ana halkan imika uma tala galsanay waan iska show iyo jacayl u bay qaadeen ama laga yaabaa inay su'aaliga weydiin doontaan ama aniguba kor waayeen waa wada indhaa leeyahay inaad iga sugaysaan in wadankii idinka warramo horta wadankeennii waad la socotaan sidii dawladda ay u burburtayba dhibaatooyin waaweyn oo aad u ballaaran baa ka dhacay dhibaatooyin waaweyn yaa wadanka ka dhacay dagaallo iyo xuruub ayaa ka dhacay haddana ha dhacdee waan dhaanaa sida maanta dadyowga qaarkood ay yihiin uma ay dhicin umuladooxo oo reer la isku laayo oo waxaynkaasi ma dhicin waxa dhacday dawladdii iyo shacbigeedii oo wax isku ridridaaya kolkii ay joogsatayna dadku waxa cid waliba ay tiruun walba maxay noo dan walba maxay war dagaalkii inaga joojiye farsamo xumo meelaha qaarkood ha dhacdo oo qaabkii madaxnimada ay lagu heshiin waayay farsamo xumo ha u dhacdee laakiin waxyaabaha maanta walaaliheen ka taagan badankooda ka taagan kama dhicin dhulkeena haddana dacaano daatayba dabadood la qabay yaa la yidhi waxyaabo nidaamyo ah meelo badan buu ka jira oo nabadiina ay ka xasishay sida buntland oo kale nabad fiican baa lagu joogaa somaliland nabad fiican baa lagu joogaa koonfurna waad la socotaanoo xaalkeedu iminka aad buu usoo wanaagsananaya annagoo qolyaha waxaan nahay xagga waqooyiga ahee xaggaasaan u joogsanay yidhi oo kolka la yidhaahdo maxay waan goosanay war ma aanaan goosanine dhan baan u joogsanay iyaanu maxay leeyahay dhinac baan u joogsanay wixii ka dhacayay koonfurta ka dhacayay balaayadaasi si ayna noo soo gaadhin ayaanu maxay leeyahay maamul gaara samaysanoo dhan baan u joogsanay laakiin ummadda Soomaaliyeed waxaan idin sheegayaa oo idinku bishaareynayaa meel kasta oo ay joogto waa ummad wada walaal ah abti seedi adeer dadka caynkaasi dad dhabarku isku jeedin karo oo aan waxba isku ahaynoo ninba aan kaasi waxba igama khus ma noqon karo calanka maanta uu iga xiga aniga calam aan Soomaaliland baan ka imid haddana maanta halka ku arkay waa ku farxaya waayo waxa caalamka kale ee joogo dhow iga wada xiga midba iga wada xiga waxa weeye kolka ummadda Soomaaliyeed idinkuna waxa tihiin dad sahan baa tihiin dadkii wax barasho u yimiday ayaa tihiin wadankaasi idinku ii sugaya ama Puntland ka yimaada ama Somaliland ka yimaada ama koonfur ka yimaada idinku ma kala liidina maanta halkan qaayraad joogtaan wadankeeda wax u barataan umba annaguna waxaanu idin arkaynaa dhalinyartii Soomaaliyeed ee dibadaha u soo kacday oo wax soo baranaysa halkay doonaan baa hadhow shaqaha ka qabtaan ama Soomaaliland shaqaha ka qabto ama Puntland ka qabto ama koonfur ka qabto ama federaalka Itoobiya ha ka qabto waxa weeyaan waxaan isku naalaa waxaan kala go'aynin walaalnimada iyo wada dhalashada ayaa qofka Soomaaliga ku ka meel kasta ee joogto oo ku soo baxo adoo qariiba si gaarad ku kaaba u eegaysaa si gaarad ayaad u eegaysaa taa maxaa keenaya waa Soomaalinimada cariiqa aynu ku nahay halka inaga wada talaalan in ummad Soomaaliyeed aynu nahay oo Ilaahay geeska awna dhigay waxa soo dhacay bariyahan oo jirta islaamba waxay tiraa la yiri baryaarkii nabad ma aha الله waxay tiri reerkii nabad baan kaga imide laakiin mooye taagnaayay hadaan u dhibaato geysan nabad baan reerkii kaga imid bay tiri waxa jiraysa dumarku markay mooyaha wax ka lagu tumo waa la tiirin jiray saa loo jifin jiray waayo carruurta yar yar baa ina waa shayga weyn ee taagan carruurta yar yar kii shan jirka ahaa baa jeeri ku kala gurguuranayay ayuu madaxa kaga dhici basba markaasay tiri balaayo kama aan imanina nabad baan reerkii kaga imide mooye laakiin taagnaa oo tiirinin ayaa xusuustay
halkiiba intii la kicbay qayrati midoo la yidhi kii yaraabaa mooyihii jiirayoo kii kale gurguurinayaba madaxa kaga dhacayoo ilmu yaraa lacaas bay tiri ilaahay horta inagama dhiga aan dhulkii nabad baan kaga imid nabadna waan ku ogaa laakiin wax qabiil la ilaabaa sara joogay waxaasi wuxuu geysan doono kolkaas waliba ha lagu saleeyay doorashadii iyadoo wixii la isku ogaa ay ahayd warbahasha qabiilka aan ka baxno oo yaynaan ag marin oo dastuur aan samaysano qaran aan yeelano inanka iska sharaxaya zeylac oo kale iska sharaxaya iska sharaxo ceerigaabo iyo balan iyo laascano ka tigaya iska sharaxo yaynaan waxba kala yeelan iyadoo wixii la isku ogaa oo baa bahal cimaamad oo duubka xirani ay soo qodan inka joogto oo kaliya kuma eedaynayo macal kuwii hore ee joogay wax lagu aasaasay iyo noqday waan ma meediya inaad ka aragtaan habeen walbooda suudaana la caleema saaraya وريه هبل هذا النهاي يرى مع الكونفور استمد وريه هبل هذا النهاي سودان هبل بان على مسارني يا إنجلي وحال محاكي هذيا لما كان مضح رأى عاديستي إلى هذان هبل مسودان بها سودان كسودان والكاك لا ذو حاجة نجوز مركز مركز وريه بهبل أون أقانو وجيت كان كهذا عن كهذا إلى سودان نقضي ورشي سو إيريا تكان كان يالنا إذا سوق هذا مركز سعودين تلوك إمامك يفوفيه في كان أروت الدنيا وحيران والله هذا رج بدن قيمة ليه كجرا سعودين أو عمد عني يدمان طول موضة عني رج قيمة له أو شرف له يالله كان كي بدي وقولي سومالي لان أنقرنا إياه لكن إن بدن نوي جفا بس هو اللي لابس بامبا واصل بامبا لقولي كذا هو بل أنت والله كل كلا شيء بس الله درت له يلا إلا قصر على وجهك إلا قصر على وجه مركا سبع شيء عن لوكي مي سوماليا تسكبر أما سومالها شيء أما بالله شيء أما قنفر جمهورية مركا سو كعيسى هالنقطة سبع شيء حليصة سبع واحد هاي إنه يقاف بيك كعام مدوا قبيل أول مدوا جيد قاد ليراه مدوا قوت كي وضك أولا نعي أو قوت كي وضك كسر بحي أولا نعي أولا قبحي مدوا قبيل أو وكها أضعركتين فول حبولي قصيدة كتير ربيع السقاشك والمين مريم دونا إن شاء الله تعالى أنت عربي جرينا كلها مادة قال لك أنا ويفهم كل وضن عربيت كل ده جوتان ولا وده فاهم إياه والمين مريم دونا ربيع السقاشك قصيدة عتريه مريم أو كذا على هيك قبيلة الدنيا فالحمد وضن كون مريو مدوا قبيلة ده مدوا جيت كقاض ليرة هلكو إن رم رايو وضن كهدان أكتين ما ملايكرتها واحد علم طبعا كقفية المجال كأه شنبان عنين أما أفر بان عنين أما نص أو نص بان عنين وأنت في المجال الجديد باديهم يا ولا سووا طبعا كقف بس سجال بان تجات كقف بالغ يا أبا قف لازم واحد اللي واحد مصري يا بان هو بقابلين أما هو الكبيرة أو إلك ما يو هو الكبيرة نبغى نبغى كافون حمديسي هل كي الأورنجري دبل كي الأورنجري هو يأرجع وضع عوضة كإيراني وحلا إلى هو يأرجع أبا كإيراني محل كإيراني لوليه أرجو أورني أول أروري ما أنت أنا أروري لما كان جاد لي عشنا وعمايان جاد كوي عمايان قاضي لورني كل قصة لورني ورده وحلقوه شيء تاسو جاد الجولية العج ما حيو أرجبان كير يا أورني ضمان كهرك قال يو بربلا بري أبو دريس أرجع وحولي أنا حولي الدنيا ما أنت ورابين صور رابين نيف بكريبيا كل قصة عادل نقطة دمر كيلا إلى هذا كل أي أنت يرى إلى هذا أي هدو نيف قاس نبالي مالتي هو قدر نيبان أنا مالتي يقدر نيبان حوي يقول مالتي الإسلام تيجي يقول أنا أروري وأنا كان صومر بينا إسكافر دوا داشين ما يا بيتي أنا أروري ويقرن يسوي لي حامل جيرو إن أمر يدعنا وكل أروري نبان يقول وسأل الله سأن يرى قرن ويقول أنا كل خلا ورابين اليوم فوستال كلا جويا برعة كاسة الله ورابيا ومش اللي جتها فوستالي بركة هاي أرجين طبعا تون سوق بتاعي يعني فوستالي قبل كايت كوبي أرجين ورابي أيه سلا ويجر بيني وأخذ الفلسطيني سلامتي عليه هذا أرجين دري هالكا أي تاجرته waxaan saddex shay halis waddanku yahay mid waa qabiilka midna waa qaadka ka kalena waxa weeye waa quudkii waddanka ka soo baxayay oo dadkeenii ka tagay inaan goostay
goor ay gooyeen garan maysid ku heshiiyeen garan maysid inaan dhulka zarci la beeranin oo waxba la beeranin waxoogaa yar oo khudrad amaahe galbeedka anigu aan ka imiday ee boorame iyo gabiile iyo jiilaha ee beeraha zaraacada waqooyiga waxa ugu badan gabiile iyo boorame ayaa ugu badan waxa la beeri jiray haruur galeyda oo arbixida qabadin sareen heed shumburo misir atar sagaraxuur maxaan ku ilaa 13 shay baa la beeri jiray oo la cuni jiray dadka ay cuni jireen bariis lama aqooni waayihii hore anagu dhalinyarada ahayna kacaanka ahayn lama aqooni maalinta bariis uray waxa loo jiray alla reebel baa ducaysanay bariis cad baa la karinaya oo hadaan urinaba ducay ahaan jirtay oo iyo ahaan jiray maantana waxay maraysaa aqal walba in lagu cuniyo bariis iyo baasto lagu cuniyo oo haruurkii wax cunayaaba aanu jirin galeydii wax cunaya habeenkii baa qof baa habeen iyo qaato waxa way qiimo beeleen dadkii loo iska badaayo caleenu baaba loo gooyaa imka beerta kolkay baxdo waa la gooynayaa xoolaha barbarada la dhoofinayo si loogu qaado waa dhigto qolada madaxda la hadlaayay baan ku lahaa haddii ilaahay la samaxalla alla kama dhigee hadduu dagaal caalami dhaco ama shil caalami u dhaco oo qaaradaha Asia bariiska inooga imanayo doonyaha iyo maraakiibta la wada xilo dadka Kenya ee 3 bilood gudahood ku macaluulaya ay waa Soomaali inay ummaddu kolkay tiraahdo dhulkayga ilaahay ugu abuuray waxba kala soo bixi maayo anu oo waxba beeri maayo waan dul fadhiin oo xooluhu baa ay daaqi zarci beeran maayo aan cuno waxaan ka sugayaa Hindiya iyo Pakistan ayaa ka sugayaa kolkuu yiraahdo haddii dagaal u dhaco ma jirto waa la baaba'aya bariyihii hore kolkay abaaro inagu dhacaan dhulka Oromada ayaa la geli jiray islaanta shabeelku ama waraabuhu laxda uu ka qaataa waxay ku ooyi jirtay mid maqasheen muciyaalkiin waxay ku ooyi jirtay qotaha ibsadayay bay oran jirtay ku ooyi jirtay macnaa kala dul arigii habeen neef qaato waraabuhu kolka qotaan u jeedaa dhulka Oromada haybsaday halkaan Oromo ka galayo qotaha ibsadayay bay ku ooyi jirtay marka waxa weeyi tiina maanta ma jirto oo iyaguna ama way mid noqdeen ama ummad malaayina bay noqdeeno zarci nooga imanaya aanu jirin marka waxa weeyi saddexdaa shay horta dalkeena halis oo aha qabiil sare jooga waliba doon wax sii kicinayaan ay tahay doorashooyinka ay tahay dadku qabiil isku ma sheeganayo oo daaqsimo laguma dagaalamo ceelo laguma dagaalamo gobolada dhexe waxba laga sheegaa galguduud iyo waxba laga sheegaa meelahaas laakiin inta anigu horta ogaay waqooyiga ilaa Puntland laguma dadku kuma dagaalamaan daaqsin iyo ceel iyo kuma dagaalamaan laakiin halis waxa loo yahay walina ma dhicin laakiin halis baan bahasha adu wadnuun baan farto ayaan leeyahay qabiilka haddii laga dayn waayo doorashada qabiilka ku dhisan haddii laga joogsan waayo oo laga waantooni waayo de foolxumo baa looga dhaadhici doona marka bal idinku dhalinyaradii haddaad tihiin dibadda u soo kacday cilmina baranaysay haddaad tihiin bal waxaad maskaxda ku haysaan sidaa saddexdaa shay looga gudbi lahaa qabiil wax lagu qaybsado oo madaxnimo lagu doonto qaadka oo laga haro iyo maxaan ku yiraahdaa quudka oo wadanka lagala soo baxo oo dhulka dhaamam laga xiro oo ku turtirsadaan inama badan oo jira jirta tanmiyada ziraaciya iyo waxyaabaha barta ayaa igu jira in dadka lagu turtirsiyo waxaan xusuus idinka tagayaa oo kale waxaan halkan 29 baan aad uga calacalay Soomaalidu xaalkeedu sida uu ahaa waqooyiga naftiisuna kolka hagaagu uma deganeyn isaga naftiisu oo dhibaatooyin baa ka jiray burci iyo barbari iyo waxyaabaha ka jiray markii dambe ayaa nabadeyntii odayaashii ka qayb galay baan kamid ahaa ee nabadeeyay baanu ahayn laakiin waxaan ka taasufayay kolka 1929 ummadda Soomaaliyeed xaalka ay marayso ereyada in waxa kamid ahaa abki ala Soomaali wal wadani صبت عليه مصائب تتنوع دمرت مباني للحكومة أتقنت فالأرض قفر ليس فيها مصنع أين المكاتب في العواصم لا لها إل يراعي حقها أو يدفع هتكت محارمنا وقد فعلت بها أقصى العقوبة ليس عرض يمنع والنهب للأموال أصبح عادة سقف الديار واللوحها يترفع حمل السلاح شرارنا واللئامنا يقضي بها نفسا ومالا يجمع وتفرقوا باسم القبائل بينهم صار شعار لهم طلاي مفزع دارود يا ضراي ويا هوياي لها وشبيهها وشر فيها مودع
جعلان تدفع نتنها بأنوفها فحم تهون على الإله وتصرع مثل يوضحه الحديث مطابقا زجلا لمفتخر بها لو يصنع حديث أيام النبي صلى الله عليه وسلم عليه لا ينتهين أقوام يفخرون بالرجال إنما هم فحم من فحم جهنم أو لا يكونون أهون على الله من الجعلان التي تدفع النتن بأنفها. هذه القبائل في الفساد أزمة لمضية الشيطان فيها مرتع ويقودها سيد القبيلة إنه قين يفش بكيره ما يقلع قد كان لي في الأفق نجم ساطع ودوي صوتي في الأفارق يسمع أسد له لبد بوسط عرينه واليوم ثعلب لا يهاب مضيع ولقد تمزق شعبنا من بعد ما كان لنا في الناس مجد يلمع وتفرقوا هربا إلى الأوطان لا زاد عندهم ولا ما ينفع نزلوا مطارات وليس لديهم رخص الدخول إذ العبور ممنع هاتوا الجواز وأين أنتم تغسلون عكف المطار لهم عيون تدمع ضرب لهم أو حبسهم أو نفيهم فهم حيارى والهواتف تقرع يا أيها الصومال قوموا واجمعوا شملا لكم كي تسعدوا فلتسمعوا وذروا التعصب والتناحر بينكم صومال جنسكم ودين يجمع هذا كتاب الله يألف بينكم فيه السعادة وهو النور يسطع يحيا به الشعب الضعيف ويسعد وبه إلى سبل المكارم مهيع مهما طلبنا عزة من غيره ضربت علينا ذلة تستبشع عبر بعهد الماركسي ونظمه فمعاذ ربي أن نضل فنرجع لا يلبغ المؤمن من جحر إذا كان الحجاء قرينه لا يلسع يا ربي يا ذا الجود يا باري الورى يا من إليه شكايتي والمفزع ارحم للشعب ذاق ذل معارك دارت رحاها فالنفوس تزعزع والمقت فارفع يا إلهي والغضب من لا يخافك لا تمكن يبخع ولك الجنود من السماء وأرضها والكل منقاذ لحكمك يخضع فمن علينا بالأمان وقادة تهدي إلى سبل الرشاد وتنفع هذا عبيد الله ابن الجوهري يستوهب الصومال أذنا تصنع ثم الصلاة على النبي محمد خير الخلائق أجمعين مشفع حالة سان كتعسف يوم آد وعلى علي أمد الصوماليات آد أن وعلى علي وأن رعصان يا أن هلكن رعصان يا هذه حاجة سياسة مركب يتعرف قال كنت هو أضياش السياسة أنا وحكوا اللي يلي كنت نبى لي كل صحابة وأوي بكمدها كل عايشة قرابة أنا كمد بوها سيدنا نقول ما ينابوا جنابه نقول ما ينابوا وأم عاشوا أمهات المؤمنين لقوا يحجون الدين وحي حق الموت والعبادة يسودون يعني كانوا كبوا قالوا على الخبير سقط من القفح وأولاد أي الحويدي سويت العايشة مركز زي التلمانتين الصباح أم يلو جلكها قبيها وذا جالسي تنها جالسي صدايل مال يضو جلكها قاء وإنجيجن هكاكتين والسلام عليكم ورحمة الله أي مقدمة marka hadii aw la igu tilmaamo oo waxba la yiri waxaan wax ka ogaa runtii waxa jirta wada hadal baa socda oo ka warqabtaan halkan intaan joogay baan lagu waxaan maqlay wada hadalkii oo burburay baan maqlay anu qoladeedina waan u dirayaa qolada kalena waan u dirayaa waxaan leeyahay wada hadalka Soomaalidu marna inuu burburo maaha waxa burburinaya waxa weeye dadka da'yarta ah ee 30 jirka 40 jirka ah ee waqtigii dawladnimada la qaatay dhexdiisa dhashay kolkay isku yimaadaan ay kulmaan in ayagu ku heshiinin baa laga yaabaa soo jeeraan baa laga yaabaa da'dayda 20 jir baan ahaa maalintii calanka Soomaaliyeed la saaray dadka da'da ka xanaaqan ma aan waan ku farxayo ma sha Allah baan ilaadaa 75 yaan hay marka imika 5 baa laga joogaa 60kii laga joogaa 20 jir baan ahaa siyaasadaha kama aan qayb galaynin laakiin waxa la hadlay mutacallim ah oo luqada carabiga ku horeeya oo thaqafad weyn ku leh taariikhda islaamkana aad u akhriyay taariikh xataa ka horeeyay akhriyay waxa la kulka taariikh aan isku amaanayo waxa ilaahday waxaan akhriyay min ladun hamalat hawa bishiif katwa ay ku qorantahay hawa kulka uurasatay shiif taariikhda ka soo warrama نروج ذهب معاد الجوهر والدمية دمانتي والدمية مركا أمضان أو تاريخ أو الدولة لأن وقت كانوا كامل كوها أخذ جدول عن كامل كوها مركا نروح عليه حاليا أنه كما يجي إلا يلاحظوا
way u burburay oo waa lagu kala tagay la yiraahdo hal wada hadloon baan leenahay waxaan leeyahay dhalinyarta yaryar laga daayo odayadayadii waaweynaa iyo mashaayikhda waaweyn iyagu dib ha iskugu soo noqdaan oo hal la yiraahdo iyagu ha soo fadhiistaan حتى هالله يعرو لابد دولة هالله يعرو والله الله بالإنجليز ولا صافريسو والبرتغالي ولا صافريسو والمدة المحاضر كلا قرطين توي شيء زين كلا قرطين الله يلعب أما والله ودجيري أول ولا هم ميل كلي يسكنوا هم بالله ولا نقول أما لما الدولة الله إسكاش الله صدا عرفت موي بدنتاي هم بالله نقول كل بلكي سومالي كلا جنس طول يلا والله كلا تجري عنا حاجة أو عنا حاجة أو على أي كبيرته لا كأنه ما نقول taas ma nabadgelyo wax colaad lagu xalliyo oo arrimaha colaad lagu dayo oo colaad ba la ma ogolin waxa weey wadanka kolba in ba u nool maanta odayaal arrinka gooyay waa u nool barito shabaabki dhalinyartii soo kale ayaa maxay ahayd qabsan doonta talada idinka barito la wareegi doono kuwa idinka dambeeya la wareegi doona marka magaca Soomaali la yiraahdaa horta alxamdulillah rabbil caalamiin waxaan ku farxaa marna waa naxaa kolka wax la sheegtay la yiraahdo halkaana mid baa qola waxaad halkaana qola maamul samaysatay gaar halkaana la yiraahdo waa yar damqanaysa laakiin kolka aad aragto mid waliba inuu magaciisa Soomaali ku yeelan waxa leedahay wallahi meesha wali rajo fiican ma yaal baa leeyahay xudunada Soomaali uu sheegayo rajo fiican baa leeyahay marka taana waxaan leeyahay insha Allah ta'ala annagu xagga iyagana waa ku tirtirsaynaa dhan walba uu noo furan yahay hadaan culimo diinka nahay hadaan odayaasha nahay waxaan leenahay ma ogolaanayna in la yiraahdo lama wada hadlaayo oo waa la kala tago saasa lagu kala tagay wada hadalku uu soconaya labadaana mid ba la iskugu iman ama qolada doonaysa ee ba arintu noqon doonta maxay hayday war meel kali aan ahaano mid kali aan ahaano ama waxay noqon war qolo walba dhakeeda ha joogto sida carabtu labada mid bay noqon doontaa ku damay doontaa laakiin Soomaali waxa ogaataan qalbiga idin kaga talaalnaato Soomaalinimadu iyo walaalnimadu waxaan idinku ducaynayaa ilaa mustaqbal fiican oo saciida in siiyo inaad najaxdaan sida aad kugu duubantihiin waan ku farxay kasoo dadka gabdhuhu ay ka soo qayb galayna runtii aad baan ugu farxay oo kolka la eegayo waxay oran jireen wiil yacaan laba sayood baa loo kala fasiraa qolo waxay tira gabdhaha aan qadan العام من الجواري من كل شوهاء كشن بالي لا تدفع الضيم عن العيال وحاسيتي يتلس إلهي قبل باليتو يرى مالها قلقلك أون جوجتون قلقلك دافين إلهي قبل بالي oo walaalhood kolka la dilayna oo in mooyaane wax kale in ka yagiba la dilay oo tira mooyaane aan waxba tarin ilaah ba iga badbaadiyay gabadhii kale gabadha dhashay baa tiri wama calayha an takuna jaariya تغسل رأسي وتكون الفالية وتسقط ساقطة من خمارية حتى إذا بلغت 8 أزرتها بنفية يمانية أنكحتها مروان أو معاوية أسهل صدق ومهور غالية وحيتي وحبا مالا بيتي قبر دان لأن وحبا مالا بيتي كل مدحها هي فيردو كل مريها هي ميردو ملقبض كل هيك دعنا وهي ملقبض يبقى كان عضيه قالها يتراض سيدي دير مالنتي gaadho marayado subaaciyado caar leh ayaan xilibay tiri waxa iga soo doon quruxdeeda iyo sharafteeda kulka la arko Marwan iyo Muawiya waa generaalkii booliska oo Bani Umayya xukumayay iyo Muawiya amiir al-muuminiin baa iga soo doon ragii ashaar sidqin wa muhuur gaaliya meherkooduna qaaliga ahaa gacantooyadooduna qiimaha ay lahayd Marwan baa maqlay oo wuxuu yiri 10,000 oo diinaar ayaan intaay ku guursado inankayga waagii kacaanto inankayga u guurin doonaa intaas aan ii joogaysaa buu haddana Muawiya maqlay kolkaasa Muawiya la yiri 10,000 baan aniguna bixiyay buu oo diinaar haddii 10,000 oo dirham isagu ahaa inankayga u guurin doonaa waaga ay maxay hayday kacdee inantaay halkii Soomaalida oran jirtay kolkay gabadhu soo dhalto waa hebel baa ku xudur xidhay baa la oran jiray oo gabadhaasi ay u joogtaa ilmihiisa ay u joogtaa la oran jiray maxay reerkii noqotay intaas oo daarood bay iibsatay inta Muawiya wuxuu yiri hadii la iga horeeyay lacagta igu soo noqon maysa buu gabadha tiri buu ashaara sidqan wa muhuur qaaliya lacagta la isoo celin maayo ha ku darsatay buu Marwaana ilmo yar ah u joogtay intaas oo daarood bay iibsatay tii kala maqashay waxaan xagay ka keentaa leeyahay miyaanad maqal inantii yarayday dhashay iyo Marwaana 10,000 diinaar ka bixiyay Muawiya 10,000 diinaar ka bixiyay oo hinbay qabsoo waxay ilmadii raabay sidaa intay kala tuurtay tiri waxa yar guriyada wada dhaaleen la iga taga wax la dhalaa gabadh baa la dhalaa ida hor dhaqaaqa wixiina ya horta gabadhu qiimaha seelay
odayadana Soomaalidu waxay nooga sheekayn jireen nin baa dhalay baa la yiri 5 wiil iyo gabadh buu dhalaalay 5tii wiil baa noqday dadkan imika kolka macallinaya la yiraahdo noloshu ka dhacay la yiraahdo waa afkii weeyaan anagu ma naqaan jirin laakiin ninkaas waa nin nolosha ka dhacay oo qof nolosha ka dhacay baa yaa la yiraahdaa 5tii baa nolosha markaa ka dhacay noqday gabadhiina Ilaahay wuxuu geliyay reer fiican oo qiimo leh uu geliyo markaasay kan tukaan yar u dhig kan wuxuu qabo odayna waxa tahay aabo cid ku daynaysa ma jirta alla waan ka dheerahay hooyadiina daabay noqotay aan ku guuriyo islaan maryaha ka marmay bal hooyo waayahay odaygiina way u guurisay odaygii baa yiri waryaadaheen wayna maalin baa gablimi gaaray buuli maalinta intii aamina ay iga noqon lahayd buuli inaan gabla baa noqon lahayd buuli waxa ku soo biiray buuli gabadhii ma ku soo biiray dadka markaas wixii Ilaahay barakaynayo ayaa u barakan inaan baki Ilaahay baraka ku gelay marka Ilaahay dhamaantood baa inoo barakeeyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh aad buu mahadsan yahay Ilaahayna miisaanka xasanaadka ugu daro sheekh beledkeena sheekh Cabdilaahi sheekh Ali Jawhar isla markaana miisaan weyn oo culus ku leh ummadda Soomaaliyeed bari Soomaal meel kasta ay joogto labada kelmadood ee qiimaha iyo qaayaha badan leh sidoo uu ugu bayaamiyay inuu sharaxay inuu iftiimiyay si Ilaahay maalinta yawm qiyaamaha miisaanka xasanaadka ugu daro inagana ku faa'iideystay wax ka qaatay Ilaahay nagu daro inta ka bacdi waxaan jecelahay inaan u gudubno marxaladii ahayd su'aalaha halkaas waxa ay raaci doontaa hal eray oo su'aaluhu waa inay markasta ku beesgareysnaadaan tuliga caawan ka hadlayna oo labada kelmadood oo kala walaaltinimada iyo waxa nasiib iyo shay oo siinayna walaalkeen Cabdirasaaq tafadal marka hore waxaan u mahadnaqayaa sheekheena sheekh beledka sheekh Cabdullaahi ibn sheekh Ali Jawhar waxaan leeyahay subhanahu wa ta'ala miisaanka xasanaadka Allah ugu daro inagana Allah inagu anfaco الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه الله ينقيه انت كذب كل سؤال بوران مقبو لكن waxaan doonay gabaygi aw sheekheenu waxa waana shaacir oo runtii aad iyo aad bay soo jiidatay gabaygi qiimaha badnaa oo ka tiriyay qabyaalada gabaygi markii uu tirinayo ka qabyaalada ka hadlayay kii ka horeeyay isagoo qudhiisa uu 9 kii tiriyay ayaan ka codsan lahaa isagoo qudhiisa inuu bal wax inooga dhagihiina wax ka maqashiyo marka aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa walaalaha ka soo qayb galay iyo naadiga ardayda Soomaaliyeed waana mahadsantihiin wax su'aalo ma qabo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aniga waxaan dhigtaa haddii waxa la yiri magacaaga sheeg magacaygu waa Cabdirasaaq Ismaaciil Cabdi daraasad culya baan ka diyaariyaa jaamacadda dalka Masar kamida marka kulliyadda shareecada ku jira marka sheekh aad baan isugu doonay kulli fiilahaan marka marhaban fi ayad maftuuh ayaan leeyahay iyo sida yaani maxay ahayd cid waliba meelaha qaadkood ay u sheeganayso intaasaan ka dilayay in walba isagoo bismillaah allahu akbar intaasaan dilay jannay wada tageen mid walba wada leeyahay waqasida raa'ica oo runtii aad u qiimo leh weey haddaan carabka taabto oo mariyo waayo waan iskaga jidboonaya kolkaan arko بدأت بحمد الله النظمي أولا إذ البدء بالأذكار أولى وأنفع أخص الحديث ما أصيب بأرضنا ومن نكبات الدار ما هو مفجع ليبكي على الصومال من ينتمي لها ومن تصل القربى بهم يتوجع تحير فيها النابغون وكل من يحاول أن يسعى لحل وينفع وقد مضت الأعوام 20 كاملا وما لاح برق للحياة يتضلع فأين الدعاة الناس أين خيارهم وأين رجال الدين من هو يرجع قد انغمسوا في الحرب والكل حامل سلاح الرشاش والمصاحف توضع قتلنا من الكفار 9 و7 ودار إلى الجنان مصبع على الله يحل الدم من مسلم سوى خصال 3 لو يدعونه ويصنع وليس جهاد ما جرى بين إخوة بدين ولكن فتنة يتوجع فماذا يقول الناصحون وهم على شفا جرف نهار قريبا فيبقع كفى ما بنا من فرقة وتناحر وتكفير بعض القوم للبعض يسمع يحرف آيات الكتاب يؤول بما يشتهي من رأيه يتوسع خذوا عبرة ما في بلادي وقارتي وقد كانت سمراء من قبل تلمع قفار يباب والديار بلاقع وقد ضحن الحرب ضروس تشجع تؤجج نار الحرب فيهم وتجمع لهم حضر جزل وزيت يوزع أقول لهم قوموا لشمل صفوفكم ورأب لسدع كي تفوزوا وتسعدوا وهذه أقاليم الجنوب وحالها ترون وما يخفى أشد وأفظع
وفي هذه الأيام تبدو ملامحه تبشر بالأمن الجنوبي وتصدع. أرى أنه تحيا البلاد بقادة تقوم لإصلاح البلاد وتنفع، ومن لا يهتم للمسلمين أمورهم فليس يعد منهم ويودع. وهذه جيبوتي جارنا تتألم تنادي بتوحيد الصفوف وتجمع، وتنفق أموالا وجهدا محققا لتهدئة الأوضاع تسعى وتسرع. وكم عقدت للصلح مؤتمرا، وكم لمائدة الحوار تدعو وتصنع. وشكرا لشعبنا الجيبوتي اتسخى بحسن القراء إذ هي في القرن منبع. وماشي نقول تاجنين نهايد ودولة الجيبوتي أن أمان وجهدنا. وشكرا جزيلا للوزير بسعيه وقد ظهرت منه الكفاءة تلمع. ولسيد الجمهور شكر مضاعف لدينا وترحيب ثناء موسع. وندعو له عمرا طويلا مباركا يوفق له فيما سعادة تجمع. نقدر بالجهد الحميد الذي سعى لتهدئة الأوضاع في القرن يتبعه. ملتقى العلماء شرق إفريقيا قيد أنها كأزر كيونك ويدي دورت مدة الحيس ديتن كأبو أهايو إنه كجرا وأنا ملاينا يا صدر كروياتان إنما ذي الله الله وعلي صدر دون كوبي. لكن القيم وحكوا هاي سجن نفتيسو وقتها دولدنا وين سنة سوماليا ما ذلكم ما بربورين نوحن سلكين كجاه لا أوضاع لكوكا تاجنيد بكملها عرفت كوكا كان لا يحكملها فقال كل لبنان بقى سعودي خذوا عبرة الماء بالعراق إيران كيسي سعودي خذوا عبرة الماء بالعراق وجارها وقد عز في الإسلام حل المشاكل وما حل في لبنان ليس بخافي وقد أصبحت فينا عديم المثال وهل نبأ فيما يعانيه شعبنا على وضعة الأحباش في غرب الصومال بيد اللئيم الماركسي إلى مريم وتخضيض حزب الروس داعي الضلال فقد هدمت فينا مساجد شيدت وشردت الأيتام من هول مقتل وهذا بلاغ للأمانة عامة لتبلغ مأسى شعبنا كل عاقل سلام على الإخوان من أهل المغرب وبنغلاديش والغانيين الأفاضل والنيجيريا ثم الجزائر وإخوته وأعني به السودان والشعب الصومالي سيدي دولة بانو هايلون شركة سنة كلا ودا فليلي marka saan salaamtii iyadana ku dhamaan ku daray on leeyahay salaami ala ikhwani min ahli al-maghrib wa bangladesh والغانيين الأفاضل والنيجيريا ثم الجزائر وإخوته وأعني به السودان والشعب الصومالي وهذا عبيد الله ابن الجوهري ويصب للصومال من أصل أوضله بسم الله الرحمن الرحيم aad baan u salaamayaa sheekha naadiga soo qabanqaabiyay kulankan aad baan ugu mahadnaqayaa sheekha laga su'aal baan weydiin lahaa waxaad ka qayb gashay dib u nabadayntii Soomaaliland xilligaa waxaa jiray jabhado waxa kale oo jiray kooxo diimeedna way jireen hadda tii mid la mid ah koonfur ka jirta marka sidee baad arrintaa يعني هي هذا حلسين ونبض هذا حلسين تكلم سوتش هذا واحد يا شيخ ما دام شاعر بدن يو قرالة بدن لين هاي ولي بوكو كلمة وروتي نتكلم مصر تابعات ذات ونكسين تامر كودا بدن كله يبغى مركا هديات كنت رجعت واحد هالكن اللي قاعد تابعات هذي أنا سوتش أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم أولا أدبا نقول فرحسن هاي الشيخ عبد الله الشيخ علي جوهر إن الله كلمه dhammaan khayarta kalena aad baan u salaamaya waxa jeclay inaan hal ku jirtay qodbadii sheekayna weydiyo oo ah dhibaatada qabiilka qofka Soomaaliya marka uu qabiil ka sheekeynayo waxa la yiraahdaa waa la joojin karayaa maadaama yahay sheekh khabiir weyn sheekh khabiira muddo far badan soo jiray bal dariiqada ugu sahlan ee dhibka Soomaalida haysta loo joojin karo inaad xoogaa yar sharaxdo leena waa la joojin karaa baa la yiraahdaa qof kasta loo joojin karo laakiin qaabka ugu sahlan ee loo joojin karo إن شاء الله بلينا هذا خير نقدر تديله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم ورحمة الله. مقعي وآذن إسحاق برة حنبتاع جامعة الأزهر كلية الشرع والقانون. لقيا بوراك يجوه الربا سؤال شيء ودي سؤال شيء واحد هاي ما دام إنه كشيء إن الصومالي حان دبلتوين بدن هذا ترى بدن قبيلة واحد الأسبوع جرا. مكانة دي هراء بوسكي هراء الصومالي اللي هاد أحام من نماذج وذجركي عن كل هن إنك لحدينا يدور كيني دبل عن كل هن هذا هذا ولا لا هنا دولة عربة أما كوا أفراد عالم كا بوسكي وينا الصومال اللي هذه مقعد سيبدي بلوصو علين كرابيرته يوم من نماذج أنا قد حدينا إهل هذا ما دام يجتو كراتك يوحلا هذا وتربل والما سنتشر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
xagga qabaa'ilka sida aan ku xallinay arrintii uu sheegay in uu horeeyay soo jeediyay ee uu yiri sideebad marxaladda u soo maray aad ku xalliseen ee aad ku nabadayseen runtii waxay ahayd kolkii dawladdii Soomaaliyeed ay burburtay dadkiina hubkii iyo silaaxii uu wada qaaday odayaashii iyo culamaa diinkii iyo dadka baayac mushtariga ah wax garadka ahaa ayaa isu tagay gobolada waqooyiga oo kolka ku noolaa waxa la yiri dariiqadeebaan wax ku xallin karnaa ayaa la yiri hadii dawladdii Soomaaliyeed ay burburtay waxaan ku xallin karnaa baa la yiri in horta dhan ay nooga joogsadaan nimanka siyaasiyiinta ah ee mansabdoonka ama madaxweynenimo doonaya ama saraakiisha ciidamada ah inay shirkay nagala qayb gelin oo halka fadhiistaan iyagu inteena kale aan kolka maxay ahayd dejino oo wadanka aan dejino waxa kaliya ay naga fadhiisatay ay nabadu ku dhacday gobolada waqooyiga ee American Somaliland magaceeda la yiraahdo la baxday ay tahay ama loo yaqaanaba waxay odayaashu ay garteen inaanay saraakiisha iyo cidda mansab dawladeed doonaysay ama madaxweyne ha noqdo ama ra'iisul wasaare ha noqdo iyo ama nimanka ciidamada hor joogay inaanay shirka mu'tamarkay odayadu leeyihiin inaanay shaqo ku yeelanin wixii odayada ka soo fula ay goostaan odayadii kolkaa waxay gaareen in laba golo ay sameeyaan golo majlis shuyuukh la yiraahdo oo golaha odayaasha oo anigu aan kamid ahaa iyo golaha la yiraahdo majlis nawaabka ee wakiilada la yiraahdo oo mid walba uu yahay 80 xubnood aw yahay ayaa la sameeyay halkaas kolka ay kuwaas doortay kolka dadkii madaxda ahaa ayaa doortay nimankii saraakiisha ciidamada ahaana waxa amar lagu siiyay in ciidamadii ay ururiyaan ay waxna boolis ka dhigaan waxna military ay ka dhigaan waxna qolada ay jeesh ay ka dhigaan wixii aan u qalmina reerahoodii u kaca ay yiraahdaan tiin nimankii way ku dhaqaaqeen hadii maalintii nimanka saraakiishu ay carqalad gelin lahaayeen oo oran lahaayeen wadanka la naga saari maayo taladiisa annaga ay oran lahaayeen wax alla wax hagaagi lahaa ma jirin nimankii saraakiisha ah uun ba arrinkii odayaasha markii ay qaatay oo yiri taladiina waan qaadanay soona dhexgali mayno ciidamadina waa idinka habaynaynaa ciidamadina way habeeyeen waxay biliisay ka dhigeen waxna military bay ka dhigeen waxna qolada ay jeesha la yiraahdo ay ka dhigeen waxna reerahoodii ay u kala direen sidaas horta nabadu waqooyigu ay ku timiday oo ay ku xasishay su'aasha labaad ee inaan ku lahaa waxay wax madbuucaad oo aad qortay ma ay jiraan ayaa u yiri runtii culimada Soomaalidu uma ay lahaa caado uma ay lahaan jirin oo kuma ay badnayn taaliifta kuma ay badnayn laakiin xagga luqada carabiga waxaan qoray way jiraan oo kitaab naxwaha oo qoray way jiraan laakiin qoladii talaamiideyda ahayd baan gacanta ka geliyay oo eri bal kitaabkaasi idinku naqdi ku sameeya inaan sidaa ku daabacno iyo wax tacdiil ah lagu sameeyo marka insha Allah taala waxaan ku rajo weynahay anigu takhasus gaara waxaan u leeyahay luqada carabiga baan takhasus gaara aan u leeyahay ama aan oran karaa wax qiimo leh waad ka qori kartaa aan oran karaa marka gacanta ayaan ku hayaa waana meesha aan la kaashan doonaa insha Allah taala wadankeena naftiisa waxa la keenay madaabici waaweyn baa la keenay oo waxba lagu daabici karayo waana arrin nagu gubaabisay aad baan insha Allah ugu dadaalayna waxa xigtay سياسة الصدحات يسوق قبل سياسة الصدحات horta qabiilku lama oran karo qabiilka waa la tirtiraya ama dadka qaarkiis ay yiraahdaan waa dhadhaaro ay yiraahdaan maaha waa wax nasab soo taxnaa oo soo jirayay weey laakiin waxa weeyi iyada oo qayb soorka laga daayo wax lagu qaybinayo ee dawladnimada lagu qaybinayo in qabiilka laga saaro oo inamada jaamacadaha ka soo baxa warqadda shahaadadooda alla tixgeliyo oo shahaadada la yiraahdo kaasi ee uu keenay kaasi B uu keenay waxa soo qalmaa shaqada hal la siiyo laakiin aan shahaadada dhanka kale loo rogin oo aan la oranin kaasi beesheedu ka tirsan yahay waa beesheedu yahay halkeedu yahay waxba hagaagi maayo kulka qabiilka waxa lagu tirtiraya oo laga gudbaya doorashooyinka oo qabiil aan lagu salayn ee ninku gobolku doono oo iska sharixi karo gobolku doono oo iska sharixi karo oo laga dooran karo shaqada oo aan lagu bixinin wax qabiil la yiraahdo aan lagu bixinin ee dadka lagu eego aqoontiisa qofka lagu tixgeliyo ciduu doonaba ha ahaado insha Allah laba walaalaana ha ku soo baxaan shan walaaliyaa soo wada baxaan taas laga bixi karaa horta karaamo weyn baynu Soomaali ku lahayd dawladaha Carabta haday tahay ama Afrikaba waxaan sheegayeen markii uu talahaa qad kaana li fi al-ufq najm saadi'un wa dawiy sawti fi al-afariq yusma'u xiddig iftiimayaan Afrika geeskiisa aan ka ahaa oo iftiimaya codkaygana Afrika wala dhageysan jiro dhigta loo dhigi jiray asadu lahu libadun bi wasfi arinihi
libaax kayntiisii dhex jooga oo reemaya ayaan ahaa walyowma thaclabu laa yuhaabu mudayacu maantana dacawo cidina ayna ka haybaysanaynin ayaan ahay watorta qasiidadaydii ay ku jirtay waxa weeye dadka Soomaaliyeed ama ha wada jiro oo mid kaliya ha ahaado oo labadii gobol ee waqooyi iyo koonfur oran jira ama ay isku soo noqdaan ama maslaxada u arkaan inuu mid waliba geestiisa dawlad gaar ah u noqdo ama maslaxada u arkaan inuu mid walba horta gudihiisa hagaajiyo oo uu ka nadiifiyo fasaadka iyo xumaanta uu ka nadiifiyo uu soo kici doonaa magacii Soomaaliyeed uu soo kici doonaa caalamkana kaalintii ay kaga jireen awal iyo tukasii weyn ayaan maxay noqon karnaa taana saas aniga igu muuqata الرحيم دمان خيرته وسلامي كرهان شيخ سفع ما وسلامي سؤال الشيخ ودينا واحد هاي كلمة دي كلمة دي ساعة واحد كخرستي وطن كيني صدح با هيستي وقبيلك يقاتك يقودك مركز سيدك وحالين كرنا مشكلة ده إن وطن كين وحكلا صبحنا وإنه متقانا خارجك وحنا نوجي معنا زي بريس كباس وحيلاس وجهري كرنا أنت سؤال شيخ سوته حسن بعدين waxaan rabaa inaan su'aal ku saabsan Soomaalida ma la oran karaa wadadii yani muwaadiniina waayo waxaan arkaa aniga Soomaali oo wada sheegnaa maanta laakiin wali ama arkin qof Soomaali oo yani ama bulsho Soomaaliyeed oo si dhab ah ma aragtay uga dhacsan tahay talnimadu wax ka dhiga tahay haddii imika dan aan ka bilaabo inaan qabanno wax mid ah waxaad arkaysaa yani qofkii Soomaaliga wuxuu ku horumarinayaa danihii kale maanta waxaa jira Soomaaliya bulsho aan xusbiyo iyo ahladii Soomaaliland sidoo kale waxaan arkaa yani qabaayilo marka waxaan isbeddelaya in kaalmo yaabanahay su'aasha ma soo diyaar laakiin waxaan arkaa mar walba Soomaali aniga waxay yihiin mar walba inaan jeclay Soomaalida wallahi aan arko iyagoo yani danta ka midaysan haddana meeshii haddii la keeno arrin Soomaaliyeed waxaad arkaysaa arrin qabiil baa ka horeeya marka maxaa ugu wacan baa la oran karaa ma jahliga ma isnacaybba yani sababta keenaysa waa maxaa la oran karaa assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu assalaamu calaykum marti sharafta qaaliga iyo sheekheena sheekh albeledka sheekh Cabdilaahi sheekh Ali Jawhar waxaan aad ugu mahadcelinayaa muxaadarada qiimaha iyo qaayada mudan ee uu noo soo jeediyay haddii aan nahay ardayda dhalinyarta ee wadanka Qaahiro wax ka bartaan aad baan ugu faraxsanahay kasoo qayb galnay ama cilmigan ka faa'iideysanay soo kale su'aasha aan weydiinay sheekha waxay tahay doorka dhalinyartu ma islaada ma ka bedeli karaan mustaqbalka Soomaaliya wax ka bedeli karaan dhalinyartu haddii ay noqoto wax soo saarka dalka in ay kor u qaadaan oo wadankeeni wixii ka soo baxa la isticmaalo haddii ay noqoto sidaad ka hadashay mushkiladda qaadka oo kale qabiilka in la tirtiro doorka ay dhalinyartu ka qaadan karaan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قدرتي هوري قبيلك يا قادك يا قودك كهديسي ولي سيابا waxa looga qaban karaa uu yiri runtii inaan wax kala qaabto waan u maleynayaa maxay yahay xagga qabiilku waa in laga joogo wax laga gudbi karaa oo kaliya qabiilku ma aha kala leeyahay laga tago sababta yaan la sheeganin ma aha oo xariiqa weeyi laakiin xumaanteeda iyo raadkeeda sayaah ee xun ee lagu dhaqmayo in laga tago waxa weeyaan doorashooyinka oo aan lagu salaynin wax qabiil la ilaa aan lagu salayn qayb wixii ummadda loo qaybinayo oo aan lagu salaynin wax reeheba la ilaa aan lagu salayn oo waxyaabaha qabiilka laga gudbi karayo qaadku waxa laga gudbi karaa madallad guud oo la sameeyo oo ka kooban culamaa diinka odayaasha waxgaradka bay'ac mushtariga waaweyn xukuumadaha dhisan oo shir ka yeesha oo qaraar ka soo saara qaraar culidiisa ka soo saara waa laga gudbi karaa qoodku kadalik waa xukuumadaha jira oo dadka ku dhiiri geliya inay dalka beertaan oo wax kala soo baxaan oo midalan halka ay basasha la cashuurayo ee Yemen ka soo degaysa iyo cusbada la cashuurayo la yiraahdo ninkii u dhimanaya basal u dhimanayo u dhimo basal la soo dejin maayo cusbo ninkii u dhimanayo cusbo la soo dejin maayo cusbo la keeni maayo oo la soo dejin maayo ka beero wadankaaga kii ka beeranayo ka beeran leeyla bariiska oo kale iyo daqiiqda oo kale isla markii lama oran karo iyagu lama soo dejin karo iyaga markii lama oran karo
laakiin hal dhiiri geliyo sidii loo beeran lahaa hal dhiiri geliyo waa dhulka biyuhu ay maraan wadankeenu waliba anu waqooyigan ka warqabaa ee Soomaaliland baan ka warqabaa 12 bilood 7 bilood un bay qallalan yihiin tixu 5 bilood biyo dooxyadu way socdaan badayna ku daraan in dhaaman la sameeyo dadka dhaaman loo sameeyo beeraha la isugu celceliyo oo la yiraahdo gooni laga daayo oo la isugu celceliyo nin walba intaas aad leedahay la yiraahdo wixii matoor laga caawin kara laga caawiyo xukuumaddu inay xoog saaraan sidii dhaaman loo xiri lahaa zarcigana loo dhiirigelin lahaa qoodku kolka uu baxana cashuur culus la saari lahaa daqiiqda aan iyo bariiska la saari lahaa tamaanada oo kale oo waxyaabaha aad u soo gala wadanka kamid ah beeraha ijaarkooda aqalada hortooda iyo ka bixi karta cusbada iyo tamaanada waxyaabaha aan daruuriga ahayna in la yiraahdo iyo cusbada iyo basasha toonta lama soo dejin karo waxa la yiraahdo ninkii beeranayo oo beero kan beeranayo waad ka kaafsanaysaa la yiraahdo waxyaabaha aan laga maarmaynina in la dhiirigeliyo in horta wadanka laga beero kolka wadanka u baxana ka cashuur dheeraad la saaro abaalmarin la siiyo dadka hodheelada ku kariya waxa wadaniga kariya in abaalmarin dhiirigelin la siiyo in dadka tijaartu dadka horseeda ay noqdaan iyo culimada diinku guriyahooda inay ku beeraan oo yiraahdaan waaran cunno waxa wadankeena ka soo baxay aynu cunno caalamka kale aynu mid noqono oo aynu ka baxno arrintan oranaysa Soomaali waa qolada Kenya ee waxa dhulkeeda ka baxana aan cunin waxa dharo hiwatana aan samaysanin dadka kala marin samaysta oo wada xogaa koonfurtaas aba baynabiya jiidaas aba dadaalji iyagana dharkii Jabaankii ku geeyay walba lagu soo tuuray waa la iska wada nacay marka aan ka baxno dhulkana wax kala ma soo baxaan هو مصميستان تا أي نكا بحنا ينك سؤالشي سوتشي عبدالرزاق أيوي ما أركو وحصومالي وهو صومالي بدر ميستان يريد قلت كل النمر لو ما أنفين كرو والله ما أورن كرو ما أرك بدأورن لما أورن كرو لكن أرنتها سوى أرن بين نقول تلالنتي أو قبيل كأو تلالي هي أو اللي نوجب هي إن أتكينا الصومالي لما ذا أينو أتكينه oo aynu aragno wadankeenu inuu yahay kii Ilaahay nagu beeray aw yahay in maxay hayday aynaan ka tagin Soomaalnimada aynaan ka tagin in la yareeyo talaabidan la talaabayo ee jinsiyadaha kale lagu beermaayo la yareeyo kulli arrimahaynkaasi abaan u arkaa arrintii gabadha ay soo jeedisay oo ay tiri dadka dhalinyaradu awood ma u heli karayaan umuraha saddexda ee aad soo sheegtay qabiilka iyo qaadka iyo quudka wax ma ka qaban karaan atiri waxaan ugu leeyahay oo igu muuqataa mid dadkay kala qayb waqti dadkay kala qayb gali karaan maanta marxaladda la joogo way kala qayb gali karaan sida qabiilkan loo tirtirayo qaadkan loo tirtirayo quudkan loo tirtirayo odayadu bari kulkay tagaan iyagu xilka la wareegaana iyaga way socodsiin karaan haday noqdaan oo ina khadkayagi ay ka baydaan oo ina jacayl ma cuno wal cuni jiray marka qaar waxa ka yar cuni jiray laakiin la toddoba saxnadood waa ka sii maqan haddii iyagu ay gooyaan kolkaa iyagu isku bilaabaan oo ay yiraahdaan way socotay iimkana way kala qayb gali karaan odayada dowlkooda kolkay gaadhaana way fulin karaan arrintaasi dhibir bay fulin karaan way maskaxdoodu way naga furan tahay imkaaniyad cusubna way helayaan assalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatuh aad iyo aad buu mahadsan yahay mar labaad mar saddexaad sheekhul beledkeena sheekh cabdilaahi sheekh ali jawhar iyo sidoo kale aqoon-yahan cabdilaahi nuur xasan waxaan u malaynayaa caawa mawduuceennii iyo brograamkeennii inuu intaasi inoogu eegyahay intaa waxaa ka dambeeya waxaan filayaa brograamkeenu inuu xidhaya caawa